hadda markaan sawirkan kale si fiican u fiiri sawirkan kale ayaad si fiican u arkaysaan sawirkan kale fiiri marka ilaa meelaha cadcadka suu ugu badan yahay sawirka maxaa xal ah maxaad uga hortagi kartaa ma looga hortagi karo sorry maxaa mataqaana markay arrinta imaado aad ku daaweyn kartaa waa intaas kaliya hataa dermarolka adoo marin kasoo qaad markaa saliid isticmaasha xataa wixii ay dhamaato muddo 2 saac kadib madaxaaga dhan wuxuu noqonayaa madax oo agool cad miiran wixii dhan ayuu assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaami gaashaan burta dhammaan raggi dumar soo dhintiin waa mahadsantihiin si sharafta la isku caawisan waa aniga Muuse meesha nagala socotaan oo kulan la bidaar caawiye waayahay insha Allah runtii waa ku mahadsantihiin mar walba waa idin mahad celinaa ilaahay maanta iskale ka suuq idinkana aad ay mahadsantihiin runtii sida mar walba iga bistaagsantiin midda kalena waxaan kaloo idin sheegayaa dhalinyaro badan ayaa wax haystaan inaan iyo jibiyay maaha muhiimaddu waxay tahay wax ku anfacayo oo mustaqbalka dhow ama midka dheer timaha ku joogay waxaas raadinayna dadaalkaas ayaan ku jirnaa wixii hadaan la tijaabinina ma la heli karo Soomaaliya lama ogaan karo af lagu ogaan karo indhaha lagu ogaan karo waa wixii in ficil la galiya waqti la galiya kadib ayaa la ogaan karaa Soomaaliya insha Allah taasna waa ogaanina haduu Ilaahay nafta nagu simo waqti yar u baahanta waqtigaasna kulli waa heli doonaa isbuucan soo socdana midaan bilaabi doonaa muhiimadda ay dhahayna ma aha mid kale neo hairlotionka hadii isticmaalkeeda la joojiyo timi way daatan okay laga yaabay dad badan inaysan ka daadan oo timooda maasha Allah u joogan dadna inay ka daataan marka dadka dhammaad xisaabi karno laakiin ani waxaan xisaabi karaa kaliya dadka inta badan oo ay dhahooniyo wadaan joojinay timi dib u gurasho timi daadasho okay waxaas waa aragnay Soomaa waa la kulmay idinkana waa aragteen dabcan qaar naga mida inay ku dhacday arintaas waa laga yaabaa ay aragtay waayahay marka taas hadda aragnay marka waa inaan mataqaanaa ficil aan subina aan wax raadina maxaa xal noo ah maxaa mataqaanaa aan ugu gudbi karnaa arintan oo mataqaanaa daadashada keenayso inaan ficilkeeda galno way Soomaa okay hadda aniga runta dan ka hadlo kiniiniga isbedel yarde macnaha aan maanta hubo ma halay isbedel yar oo u jeedaa laakiin wax dhawaaqitaan ma waa natiijo dhaysa si wad way laakiin ma mid aan maanta warbixin dheeraad ka bixin kara ma sababtoo ah 15 maalin maanta 16 maalin isticmaala 16 maalin ma aha wax oo mataqaanaa aad u badan ma aha laakiin waa wax ku tusi karo okay isbedelkaas oo wax ku tusi karo xogaa waa dareemi kartaa bili aadan anta wax yariste Soomaa okay laakiin waxa rabnaa insha Allah 6 isbuuc oo soo socoto kale markaas inaan natiijo fuula insha Allah aan ka helno ayaa rajeynayna oo isbedel aad u fiican inaan ka helno taas ayaa noo muhiima taas daa helno dawixii waa okay midda kale blue hair serum ayaan bilaabi doonaa insha Allah idana next week tan maadaama ay adeen joogi gaartay wax yar ku jiro ilaa 2-3 maalin ku jirto laga yaabay maanta saakadan iyo laga yaabay biri dambe insha Allah inkastoo hadda ay error aad u tahay marka dhalinyartana waxa uu sheegay insha Allah in ficilkaas la wado waayahay okay 17 jir ilaa 25 jir sida caadada noo ahayd mar walba waa inaan ka digtoonaataa wax mustaqbalka dhow ama midka fog timahaaga baabi'in doono midka dhow ama midka fog wax timahaaga baabi'in doono taas inaan ka digtoonaato waaye sababtoo ah wixii waa u jeedaa dhibka uu leeyahay wixii dhibaatada dhalinyarta ee asxaabtaada dadka waaweyn ay dhibaatada ku qaadeen adigana marka insha Allah ka fogow okay maanta insha Allah waxa kale noo wada arin kale noo wada arintaasna waxay tahay dadka runtii ay idin sheegaa dhageysta dhalinyaro waxaa jiro markaad darmarolka ku cusubtahay dhageyso markaad isticmaali jirto maaha markaad ku cusubtahay sheegaya wuxuu leeyahay marxalad aad la kulantid marxalad la kulmaysaa dadka qaybtood waxay la kulmaan madaxii ayaa mataqaanaa wuxuu noqonayaa cad iyo mataqaanaa waxa nambar ah oo dadka qaybtood nabarahana way dhisi doonaan dadka qaybtood xogaa way ka niyadjabaan markay arkaan way baqayaan okay baqeen wixii markaa ku cusubtahay way imaada marxaladda noocaas oo kala laakiin marka marxaladda noocaas oo kala imaado maxaad laga baahan yahay inaad suubisid okay taas ayaa muhiim ah marka hadda waxaan tusaa insha Allah waxay rid dulqaata dhalinyaro sawirkan ayaan tusayaa okay waaya rid dulqaata in yar ما شاء الله اوكي هذا صور كان وهو فيري صور كان اوجد maxaad ka arkaysaa madaxa meeshaas cad soo kama arkaysaa halkaas shaqadaas waxaad ka arkaysaa cad sax cad ka arkaysaa marka cadkaas ka arkaysaa waa nabro waay maaha wax kale maaha waa nabro waay ma fahamtay meeshii ay waxay noqonaysaa nabro cad ay noqonaysaa okay darmarolkiis liida marka ku cusub tahay waa dabeecadaas leedahay hadda wiilkan walaalkeena alxamdulillah ninkan aad u jeedo madaxiisa oo soo baxayo zero ah laakiin mar raba inaan qorshaha sii galo muhiimadu waxay tahay inaan ka sheekeeyo kaliya wuxuu ii ogolaaday labadan sawir inaan adeegsado okay aan bulshada qaybaha markay noocan isku arkaan oo mataqaana inay ka naxaan
laga yaabay inaan mataqaana ugu sii digo laakiinse aan warbixin dheeraada kasii siiyo inkastoo mataqaana dadka qaybtood ayagoo dhageystay xataa mar walba haddana ay ka naxayaan wixii argagax ka qaadeen loo baahnaa inaad argagax ka qaadid wixii haddaa wixii oo dadka dhan soo mara anigoo soo mar qof walba uu soo maraa waxyaaba weyn lagu kala yaryahay qof laga yaaba 2-3 xabba inay iska tahay qofna inay ku badato ayaa dhici karta marka xaaladda noocaas la kulantid ha ka baqin ha ka naxin ha ka gariirin okay intaas kaliya subi wixiina naxdin ma u baahna waxay u baahan tahay just inaad mataqaanaa haddaa aragtid dad badan oo wadadaas ay soo martay waxaad suubinayso insha allah ayaan rabaa inaan ku sheego kaaga shaafiyo mataqaanaa aan saawo mataqaanaa arrintaas uga soo kaban lahayd ayaan rabaa inaan insha allah ku sheego waayahay okay hadda markaan sawirkan kale si fiican u fiiri sawirkan kale ayaad si fiican u arkaysaan sawirkan kale fiiri marka ilaa meelaha cadcadka su ugu badan yahay sawirka oo jeedaa sida cadcadkaas ugu badan yahay yaas wiilkan wuu dadaalay alxamdulilah wuxuu u jeedaa macnaha inuu isbedel suubin rabo ayuu u jeedaa laakiin anaga muhiimadeena ugu weyn waxay tahay inaan ka hadalno dhibcaha cadcadka nabradaas oo madaxa u jeedaan meeshaas ka soo baxay ayaan rabnaa inaan ka hadalno qof dhowr xabaa ka soo baxo qof wax yaraa ka soo baxo qof way ku badataa wiilkan oo kale hadda xoogaa way ku badatay dhalinyarana waxa waaye hal dhinaca laga yaabaa okay marka qof walba oo bili aadan oo maasha ku cusub saliidan iyo dermarolka wuu ku imaadaa arrintan way ku imaadaa markii arrintan kugu imaado ayaan rabaa inaan muhiimadeeda ka hadalno insha allah okay hadda si fiican waa ugu jeedaan Soomaa okay marka maxaa xal ah maxaad uga hortagi kartaa ma looga hortagi karo sorry maxaa mataqaana markii arrinta imaado aad ku daaweyn kartaa waa intaas kaliya waa muhiimada markii arrinta noocaan hadda imaado maxaad ku daaweyn kartaa oo isbedela aad ku sameyn kartaa taas ayaan rabaa inaan ka hadlo insha allah isbedelka waxaa ku suubi kartaa oo ku keeni karo marka aragtid inuu madaxaaga sidaa noqdo cadcadka nabrahaan oo kale uu noqday fadlan dermarolka ka naso okay hadda wiilkan walaalkii 10 maalin xiriir inuu wadaan jeclaa sax 10 maalin xiriir uu waday okay dermarolka muddo 5 maalin ka naso ama isbuucba ka naso saliidada laagsan mari marka xaaladda noocaan la kulantid oo xaaladdaas noocaas cadcadka la kulantid dermarolka ayaad joojinaysaa saliidada ayaa isticmaalaysaa muddo 5 ama isbuucba iska dheh 5 ama isbuucba iska dheh intaas kadibna way ka baabacaysaa insha allah way ka baabacaysaa ma fahantii waa wixii waxa waaye waa wax iska baaba'ayo dib u laabanayo ma soo laabanayo markaas maxaa kugu bilaabanayo qoloftii ayaa kugu bilaabanaysa madaxii cadcadaankii macnaha ka wadaa madaxii iyo cadcadaan noqdo soo daadanayo qoloftii markaad mataqaana madaxii aad dermarolka marinaysa madaxii xataa dermarolka adoo marin ka soo qaad markaad saliidii isticmaasha xataa wixii ay dhamaato muddo 2 saac kadib madaxaaga wuxuu noqonayaa madaxa oo agool cadcad miiran wixii dhan ayuu noqonayaa taasna waxaa kalifayso intaad cusubtay okay markuu saas oo kale noqdo 2 saac kadib waxaad samaynaysaa insha allah baby oil oo kale soo gado baby oil oo kale isticmaal baby oil oo kale soo gado ayada isticmaal ayada markaa isticmaashid madaxa si fiican u mari macnaha muddo 1 saac maaha waa 2 saac ama 1 saac bar ama 2 saac kadib waay markaad isticmaashid tan madaxa gasho tan kale kadib ayaad marinaysaa tanna marka maxay ka saacidi doontaa inay ka baabiiso cadcadkaas iyo qoloftaas hadda markaad kaloo isticmaashid neo hair lotionka markaa isticmaashid oo 2 saac laga soo rig baby oil mari marka wixii dhan way ka daadanayaan cadcadkaas iyo nabrahaas u jeedo way ka baaba'ayaan insha allah saliidaas mari way ka baaba'ayaan marka iskuma arkaysid markaas waxa waaye wixii way tagayaan hadday tagaan waxa waaye muhiimada u baahneed alxamdulillah waa wax kale oo loo baahan yahay male dermarolkan hadii markaa isticmaalaysid iyo saliidaha markaa isticmaalaysid inkastoo saliidaha ay kala qolob badan yihiin waa yeelanaysaa cadcadkii waxaad xoqaysid wixii oo dhan waa yeelanaysaa taas kaama joogsanayso soo raali noqda marka hadda insha allah waxaan rabaa inaan isticmaalo dermarolkayga qof walbana dee dermarol wuu haystaa soo maa dermarolkana fadlan ha isla isticmaalina qof walba keligiis ha isticmaalo sababta waxaan irbado waa ku mudaayo laga yaaba inuu dhibaato ku keeno marka adiga keligaa isticmaal la isticmaalin qof kale waaya marka insha allah dermarolkaasna ujeedaa muddo 5 daqiiqo waa qof walba ku cusub muddo 5 daqiiqo waa ama ku cusbow ama ku cusbaan muddo 5 daqiiqo iska mari ka naso marka 10 maalin isticmaalayso ka naso 3-4 maalin ka naso insha allah intaas laag saliidaha ka nasanin masaajadaada iyo waxaaga wado isbedelkaagana wuu soo kordhayaa insha allah isbedelkaagana wuu soo kordhayaa waaya insha allah de kulay next week markaan insha allah aan hawsha kala galno waan ogaan doonaa ayadana bal isbedelka ay keento iyo waxyaabaha ay nagu soo saacidiso markaas waa arkeenaa insha allah kulay inta ka horeysa dee wax aan dhihi karno waan ogaan karnaana male wixii ma bilaabin soo ma waayahay
إلهي إن شاء الله حكرا جينا خير كلا كلنا وإسبدل وفي عنا كهنو أيان إلهي كبرينا مركز دليرتا ددالة وحكوي ماذا الصلاحية أنا أوجدت ويلكي ولكن شلي والصلاحية لا دجالمي ما شاء الله يعني لنا هاي فهمت دغفل وحواي نسيب كيسي ددال كيسي أيوة قفنا وحواي عديو درمرلك استعماله قف وكعاجسة قف وقت ما جليو قف بس سوى سما مركز إن شاء الله وحنكون جينا هنا وقت جلست وإسبدل وين أتكلمكم إن شاء الله فلي ويدوم هاي laga yaabo waqtigeediina mataqaanaa insha Allah ay dhamaanaysa in la gaaro marka dhalinyarta la socda masaajka shayga la dhaho badiya masaajka shayga la dhaho insha Allah badiya masaajkaas ku dadaala wuxuu u baahan yahay in lagu masaajiyo madaxi hadda madaxi si fiican ugu masaajeen isbedel fiican kama helaysid insha Allah marka waxay dirajeenaya dhamaantiin inaan isbedel qof walba uu ka helo qof walbana idadaalkiisa cunaya qof walba idadaalkiisa nasiibkiisa ayuu insha Allah u cunaya qofna wuxuusan dadaal suubinin ama uusan waqti gelinin ma helayo insha Allah marka waxay dirajeenayna dadaashan oo fadhiga aad kacdan tan hadda dhamaanaysa insha Allah mid kale ayaan rabaa insha Allah aan dirita furto waa dhamaad ashiyaysa inay dhamaanayso أو تفارق حدهم ما بيعد فيصل حيريزة ما أفكر يقال كذا أوكي أكيد غيرت إن شاء الله دواكنا وعند ذلك الرضا من وقت جدا إن شاء الله وسجينا إنه إلهي وقت جدا الحمد لله نقول يسيو ولا مهم واي عندنا نقول سنو دوحي أو ضدكي مدرسة مسنجر وكله وحاسة كنستان متخانة عادي نقدان تاسع مهم إن شاء الله تنا ده مدرس أنت عليك وسوينا إن شاء الله وأنا وضعي كما قصنا إن شاء الله وهي وأنا بدل الوقت أجلسه مركز إن شاء الله وهلسه تنا دوي دمعته وصام إبر ما يكون دمعته وما أنت يكون دمعتي مركز إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.